بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يعني قال ليبان بوله كل سود هذا channelكي ليبان بوله وحان بلان قادني in every 2 days or 3 days عن كهذا arrimaha قصية community iyo arrimaha dhabta ah loo baahan yahay in laga hadlo mar walba shalay ayaa waxaa dhacday United States Attorney David Meade ninka la yiraahdo oo ah Southern District-ga haysto ayaa waxa uu isugu yeeray dhammaan law enforcement-igi ama dadka ku shaqada lahaa nabadgelyada ama security gareenay wuxuuna kala hadlay in ay jirto laba meel ama laba zone oo loo yaqaan laba zone hot zones labada hot zone waxa weeye Linden area iyo Hilltop. According to local time statistics waxaa la yiri marka macnaha xisaab ahaan marka la fiiriyo 20 homicides 20 dil oo aan la ogeyn ayaa waxa ka dhacay January ilaa September 2020 Columbus Division Zone 3 ayuu ka dhacay dilkaas ama dilalkaas which includes the Hilltop. haddana waxaa la yiri 11 homicide ayaa waxa ka dhacay precinct 10 alone. Precinct 10 na waxa weeyaan 3 zones oo isku jirto oo ilaa South Broad Street ilaa Starling 127 ah way. And still the Hilltop reported 35 non-fatal shootings this December. Columbus Police Zone 4 oo degan Linden 8 bilood ee ugu horeysay ee 2020 waxaa ka dhacday 24 homicide oo dil waxaana 24kaas dil laga sameeyay Zone 4 police 36 non-fatal shootings oo aan dhimasho ku jirnaya waxay ka dhacday during that time January ilaa September Zone 4 oo ah Linden area. haddaba magaalada dhan labada meel ay ugu dangersan waa dangerka ah waa Linden oo north side anaga aan deganahay Hilltopka oo u dhow westiga Soomaalida degan tahay. marka muhiimadda aan videogan caab u duubay waxay tahay waxaan rabaa inaan la hadlo hooyooyinka iyo aabayaasha ku mashquulsan shaqooyinka ama shaqo ku mashquulay oo ay guriga u joogaan teenage laga bilaabo da'da 16 ilaa 21. fadlan haddii uu teenage guriga ku joogo oo aad degan tahay area-dana waxaad fiirisaa wiilkaaga ama gabadhaada especially wiilasha in ay haystaan hub. haddii lagu helo hub aan sharci ahayn waxay soo jeediyeen madaxda magaalada Columbus in qofkii lagu qabto qori sharci la'aan ah guddi waxaa loo sameeyay task force from Washington DC oo federal ah ayaga la kacay attorney aan qabsanaa iyo lawyer inta ka baxaya iyo waxaas wax jiraya ma ah. waxaan hadda dadku ku waaninayaa aan ku boorinayaa nin walbo wiilkiisa ama wiilashiisa ama dadka ilmihiisa adeerka ama aabaha u yahay ha ka taxadaro community adag oo lawyer leh oo ka daba tegi karana ma lihin. arrintan marka waxaan usoo fadhiistay halkan oo aan rabaa in aabaha ama hooyada second shift ugu maqan oo shaqada aaday gurigana ay ugu soo tagtay Cabdi iyo Maxamed oo wiilasheeda ah inay ka taxadarto in wiilashaas aysan qori lagu qaban. waxaan Ilaahay ka baryayaa in ilmaha Ilaahay inoo hagaajiyo in Ilaahay toosan nagu toosiyo in caruurtan aan kala soo cararnay 10,000 miles oo Soomaaliya aan la nimid halka kan in Ilaahay inoo hagaajiyo isla markaana annagana waxaan looga baahan yahay ducay kaliya ma ahane inaan shaqo qabanno. shaqada aan qabanayno waxay tahay waa inaan la saaxiibnaa ilmaha teenage-ka ah waa inaan ogaanaa activity-gooda waa inaan ogaanaa saaxiibka ay leeyihiin mar walbana wiilkaaga fiicnaa waxaa haleynayo wiil kale oo xunaadan ogeyn. marka fadlan aan isku dayno wiilasha aan dhalnay saaxiibadood inaan saaxiib la noqono marka hore si aan kaga hubino aan kaga ogaano wiilka aan dhalnay inuu leeyahay saaxiib fiican. marka walaalayaalow hal iska jiro arrintan waa arrin aad iyo aad u adag. waxaan la hadlayaa dadka waalidiinta ee degan Ohio hadhow markii xeerihi fandhaal kala dhacaan wax la qaban kara male. nimankan way soo jeesteen Columbus Police waxba ma qaban karaan way arkeen hawshan waxaa soo galay dad federaal ah waana la is ugaarsanayaa. marka Ilaahay naga badbaadiyo dhammaanteen waxaan leeyahay Ilaahay ha noo hagaajiyo ubadka annagana Ilaahay toosan ha noo hagaajiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.